cashirkan waa cashirkii 31 weli waxaan wadnaa maadadii managerial accounting dabcan gabagabaan maraynaa hal chapter keli ayaa noo dhiman chapterkaasi taqriiban inuu 3 cashir ka koobmaa laga yaabaa ama 4 cashir hagaag inta aynan cashirka maanta aynan bilaabin website-ka Share Xirfad waxaan kusoo gudbinay koorsooyin haddii aad danaynayso koorsooyin accounting ah iyo software-rada accounting-ka loo isticmaalay QuickBooks Excel-kana waxaan soo gudbinay koorso 48 cashir ah 5 saacadood soconayso oo aad u isticmaali karto koorsadan muhiim weeye qofka inta uunan shaqada gelin in uu ka faa'iideysto oo uu qaato hagaag maanta cashirka aan qaadanayno weli waxaan ku guda jirnaa haddaad cashiradii ila socotay go'aan qaadasho annagoo ku salaynayno in kharashaadka iyo benefitka loo kala qaybiyo laba nooc ma relevant ba mise waa irrelevant طبعا tusaalihii ugu horreeyey sifa aad iila fahanto waxaan ku qaadanay tusaalo qof arday ah oo go'aan ku qaadanayo ma waxaan ku safraa baabuurkayga mise tareenan qaataa kadib waxaan u wareegnay example calaaqa la leh ganacsiga maanta laba example aan qaadan doonaa insha allahu tacaala exampleka ugu horeeyo shirkad kala dooranayso in ay samayso qayb ka mid ah processka yani productiga ay soo saaraysa qayb ka mid ah part ka mid ah inay samayso ama inay soo gadato okay haddii aad qaybtan yani scenario kala hadduu ku waajaho qaabka loo dhaqmi karto mithaalka labaadna waxaan ku qaadan doonaa insha allahu tacaala shirkad laga dalbanayo special order specialka orderkaasi dalab khaasa laga dalbanayo product bay samaysaa productedii baa laga dalbanaya inay qaab mucayan u samayso kimiye mucayan in laga taal rabaa marka miyay aqbalaysaa mise ma aqbalayso idan ma soo gadanaa mise waan samaynaa ma aqbalnaa special orderka dalabka khaaska mise waan diidnaa waxaa lagu salaynayaa mafhuumka aan soo baranay ee ahaa irrelevant iyo relevant costiga iyo benefitka kadib ayaad go'aan ka qaadan kartaa inta aynan guda gelin mithaalka bal aan isla fahanno waxa aan ka hadlayno waxa weeyaan shirkad ayaa waxa ay samaysaa product bay soo saartaa ayadana productigaasi mas'uul ka ah from A to Z yani productigaasi xataa materialka galaya ayada soo samaynayso materialka ayada samaynayso yani materialka ay u isticmaali lahayd productigaasi ayada ayaa waxa weeyaan supplier kama soo gadanayso ee ayada ayaa samaynayso okay kadib materialkii waxay u gudbinaysaa qaybta manufacturingka marka ay samayso kadib ayada ayaa qaybinayso distribution ku samaynayso ayada ayaa dadka si retail ahaan uga gadayso ayada ayaa bixinayso qaybta xataa after sales bimacnaa waxa ay ku samaysan tahay in vertically integrated in ay shirkadu from A to Z ay ayadu mas'uul ka tahay productigaas value chain-ka silsilada samaynta productigaasi in ay ayada qabanayso okay decision-ka marka imaan kara wuxuu yahay qayb ka mid ah yani tusaale ahaan oo kale materialka ma annaga ayaan samayno productiga aan u isticmaalayno mise supplier ayaan kasoo gadanaa value chain-ka calaaqada leh raw materialka mase internally ah ayaan u samaynaa mise supplier ayaan kasoo gadanaa marka ay ku hortaagan tahay kala doorashadaasi waxaa lagu tilmaamaa make or buy decision su-aasha ahi ma samaynaa mise waan soo gadanaa maxaa advantage ah marka go'aanka yani marka ay shirkadu vertical integration marka ay isku dhameystiran tahay faa'iidooyinka ay helayso waa maxay dabcan markaad isku dhameystiran tahay smoother flow of parts of material maadaama adiga aad wax samaynayso materialka aad isticmaalaysana adiga aad samaynayso sifa aad u isticmaasho qaybta manufacturingka yani wax walbood u baahan tahay horaad usii plan garaynaysaa yani kuma xirnaanaysi supplierku wuxuu ku dhihi karaa waa dhamaatay weli wadna sug
laakiin marka adiga aad wax walbaba samaynayso waad sii qorshaysanaysaa. marka smoother flow, tadafuqa ay alaabta materiaalka kugu imaanayaan, qaybaha materiaalka qaab balangaraysan ayay kugu imaanayaan. shirkadaha qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxani maadaama ayaga ay sameeyeen in ay kontrooli karaan quality-ga waxan ay isticmaalayaan. waxaa kaloo laga faa'iidaa qofka marka dibadda ka soo gadanayso. muxuu samaynayaa qofka dibadda? daa'iman marka wax lagaa gadayo sidan soo socota ayaa lagu price gareeyaa. wixii kharashay ku baxay, costigii ku baxay, oo lagu daray haamishkii margin profitkii la rabay, margin profitka shirkadda rabtay. maadaama adiga aad samaynayso, adiga maxaa kugu baxaya? kharash bal keliya. yacni qof kaa faa'iidaya ma laha. mar hadduunan qof kale kaa faa'iidaynin, waxay ka dhigan tahay in aad alaabtani aad gudaha ku samaynayso aad profit aad kasii samaynaysa adiga laftigaaga. okay, dabcan wax walbo advantage leh waxay leeyihiin disadvantage. okay, maxaa disadvantage ah? waxaa disadvantage ah adiga maadaama samaysanaysa, adiga maxaad samaynaysaa? waxaad u baahan tahay keliya samaynaysaa. waxay ka dhigan tahay waxaa laga yaabaa in ay shirkaddu ka faa'iidaysan weyso mafhuumka loo yaqaano economics of scale advantage, oo ah in shirkaduhu ay soo saarku ballaariyaan, kharashaadka fikiska ay ku cover gareeyaan ballaarinta wax soo saarka. adiga ma ballaarin kartid laanno waxa kimiyadaad u baahantahay keliya samaynaysaa. waxay ka dhigan tahay halka material ee aad samaynayso waxaad u wada qaybinaysaa kharashaadkii fikiska iyo kharashaadkii variable-ka ahaa. laakiin marka aad shirkad weyn tahay, dad badanna u adeegayso, kharashaadka fikiska waxaad awood u leedahay in aad kharashka halka unit ku soo hagaagayo inuu yaraado haddii aad ballaariso wax soo saarkaaga. laanno fikiska waxaan isla ognahay ismaan bedelayso. cashiradii horaan ku soo qaadanay inaad ila socotaan rajaynaya. idan ka faa'iidaysashada in la yareeyo kharashaadka fikiska, taasi waxay ka dhalanaysaa unitka waxaa ku soo hagaagaya inuu yaraado. idan taasaa loo yaqaanaa economics of scale advantage. okay, shirkaddu kama faa'iidaysan karto arrintaasi, kama faa'iidaysan karto. okay, laakiin shirkadda lama rabo inay dhahdo economic of scale baan ka faa'iidaysani, oo arrintaasi intay soo jiidato factor soo jiita inuu noqdo ay weyso. waxaa la rabaa shirkadda si carefully ah inay uga fikirto in ay haysato controlka activitygeeda, wixii essential u ah productigeeda, ay ka qayb qaadanayo qaybta maintaining its competitive position, yacni tartanka wixii u xafidayo in aynan ka fikrin economic of scale. yacni anoo ka faa'iidaya inaan kharashka yareeyo wax yar, haddii aan ku waaye ka waran competitive position, booskii aan ku tartamayay, oo waxaan aniga markaan samaynayo ay ii keenaysay in aan kaga awood sarreeyo dadka aan la tartamayo. dabcan wax walba waxay leeyihiin advantage iyo disadvantage. marka waxaa la rabaa in laga fiiriyo dhinacyada oo dhan in laga fiiriyaa la rabaa. okay, macalin mithaalna si mithaalka markaad sharaxaysaan wax fahanay mithaal wax noogu cadee. okay, shirkaddan aan qaadanayna. shirkaddani waxay soo saartaa qayb ka mid ah material oo isticmaasho. waxaa lagu tilmaamaa part 4A. okay, waa material weeye. okay, yay soo saartaa. waxayna u isticmaashaa one of its products ayay u isticmaashaa. okay, productigan maxaa ku baxo? waxaa ku baxo material $9 material ahaan, halka producti $9 aan material ahaan u isticmaalnaa. shaqaalaha laborkana $5, variable overheadkana $1, depreciationka equipmentiga qalabka lagu samaynayo alaabtaasni waxaa weeyaan $3, supervisorka $2, general factory overheadka ku soo aadayo halka unit waa $10. overall $30 ayaa ku baxayo marka aan soo saarayno halka unit, halka party, yani qayb party mucayan oo aan u isticmaalno productyada aan soo saarno. waxa weeyaan wuxuu noogu fadhiyaa $30 ayuu noogu fadhiyaa. maxaan ka faa'iidayaa? waxaad ka faa'iidaysaa haddii supplier uu ku imaado oo uu ku dhaho ka waran
halka aad $30 ay kaaga baxayso waxaan ku kaa iibinayaa $25 yani $5 baa save garaynaysaa. okay waxaad u baahan tahay inaad og tahay halka unit wuxuu kugu fadhiyo. okay bal aan isla fiirino macluumaadka dheeraadka ah. number 1 mashiinta aan ku samaynayno equipmentiga ahi waxaa loo isticmaalaa keliya in lagu soo saaro qaybtan partigan 4A mana la sii iibin karo. okay waa macluumo bimacnaa waxaad ka dhigan tahay macallin waxaan ka fahmayaa in kharashka mashiinta uu noqonayo irrelevant. kharashka mashiinta muxuu noqonayaa irrelevant bimacnaa unavoidable cost inay noqonayso. okay meel ku diiwaan gasho waan isla arki doonaa. the total amount of general factory overhead which is allocated on the basis of direct labor hours will be unaffected by this decision. okay general factor overheadka waxa weeyaan kuma saamoobayso go'aankani ama gudo ka samee ama qof dibadda ka gado. general factory overhead way ku sugaysaa in aad bixiso kharashaad ku sugaya weeye unaffected by this decision bimacnaa mana naaqusayso mana ziyaadayso. okay maxay ka dhigan tahay taas? waa unavoidable waa irrelevant bimacnaa macallin cashiradaadii hore haddaan dabaqayo general factoryga ma ku darayo marka aan wax taxliilinayo. haye waaya waad ila socotaa mar haddii aad sad leedahay. okay $30 ee productigani aan ku soo samaynayno waxay ku beesgaraysan tahay in aan samaynayno sanadkii 20,000 oo ka mid ah qaybtani part 4A. okay hagaag qof supplier ayaa ku yimid oo dibadda kaaga yimid. supplier ayaa wuxuu ku offer gareeyay ku soo bandhigay in uu ku soo kaa gado 20,000 oo qaybtan ee 4 ah uuna kaaga gado $25. wuxuu ku leeyahay $30 halkii aad ku bixin lahayd aan kaa iibiyo $25 bimacnaa halkii waxa aad faa'iidaysaa $5 halkii unit $5 ayaad save garaynaysaa oo ka dhigan markii aad $5 aad ku dhufato 20,000 in aad 100,000 aad save garaynayso. haddii aad go'aanka ku base garayso labada lambar keliya adoonan waxba analyze garaynin waxaa laga yaabaa in qaarkiin aad niyadda ka leedihiin hataa haddii carabkiina uu idinka soo xadin $30 intuu ku bixin lahaa $25 ku bixiyo. haddii aad go'aankaa qaadatay waa khaldan tahay lianna waxaa la rabaa in lagu base gareeyo go'aamadaada taxliil analyze la rabaa in lagu base gareeyo. waxaad rabtaa shirkadda waad ogaan doontaa shirkadda haddaad ku base garaynayso labada lambar ay ku hor yaalla keliya adoona waxba analyze garaynin waxa weeyaan shirkaddii ku shaqaaleysiisa aad baad u khasaarin doontaa. okay wax analyze garee haye macallin ma degdegayo waxbaan analyze garaynayaa bal ibar. okay maxaana hor yaallo? should we accept the supplier's offer? ma aqbalnaa dalabka ama offerka ama bandhiga nooga yimid qofkan supplierka ahi. sifa aan u aqbalna ama aan u diidno analyze baan samaynaynaa. number 1 waxaan meeshan ku soo bandhigaynaa wax walba oo ku saamoobayo haddaan annaga samaynayno iyo haddaan soo gadanayno. waxaan kaloo soo dhigaynaa qaybtan cost per unitka. okay number 1 waxaan ku bilaabaynaa markaan soo gadanayna meequuna ugu fadhiyaa 25. markaan annaga samaynayna maxaa kharash naga baxayo? waxaanoo kharash oo dhan naga baxayo bimacnaa total costiga waa maxay? waa $30. okay hadda waxaan samaynaynaa marka 20,000 weeye waxaan rabnaa inaan soo samayno soo ma 20,000 aan sanadka isticmaalnaa. haddii 20,000 aan sanadka isticmaalno 20,000 ku dhufo 9 waa 180. direct laborka 20,000 ku dhufo 5 waa 100,000. variable overheadka 20,000 ku dhufo 1 waa 20,000. depreciation of equipment waa $3. calaamadda 0 baa laga dhigay. waan isla arki doonaa calaamad su'aal inta ii saar slide ka soo socdaan ku fiirin doonaa. okay ardayda qaarkoodna way ila fahansan yihiin waxay leeyihiin macallin waadna soo bartay sunk cost way maadaama depreciationka horey loo soo gaday ma aha wax calaaqa leh hadda. okay
inaad casharada muraajaceynaysa taas daliil u tahay. Supervisor salary $2. General factory overhead kana calaamad su'aal isaar. Waan isla qaadan doonaa. Hagaag. Marka aad isku dhudhufato meeqa ku soo baxayo 340 sifa aad u soo saarto 20,000 oo part oo kamid ah qaybta 4A maxaad u baahan tahay 340,000 inaad bixiso. halka haddii aan ka gadano ninkii supplierka ahaa ee indhasarcaada nagu sameyn rabay aan bixinayno 500 haye go'aankaaga ma isbedelay go'aankaagu isbedelay sooma meeshaad rabtay 100,000 inaad save garayso waxa weeyaan waxaad rabtay shirkadda inaad khasaariso 160,000 ayaad rabtay inaad khasaariso inta ma isla haynaa. I hope inta ila fahansan tahay. Number 1 depreciation ka haddii aad sunk cost ahaan u fahantay waad saxan tahay. sunk cost weeye laano depreciation ku waxaan niri wuxuu calaaqa la leeyahay waa wax holay loo gatay weeye ma aha machine hadda la soo gadanayo. haddii la dhihi lahaa machiinta hadda aan soo gadanayna markaasi waxa weeyaan wax yeelan lahayd waji kale yeelan lahayd. idan depreciation ka waa sunk cost. Okay, general factory gana waa maxay laano general factory ga waxaan niri waa irrelevant weeye oo haddii aad soo gadato kharashaadkani waxaa loo qaybinayaa productyada kale waa laano waa kharashaad guud weeye ma aha kharashaad calaaqa la leh kaliya soo saaritaanka qaybtani partigan aan soo saarayno. I hope inaan inta isla hayno. hagaag su'aasha should we make or buy part 4A ma samaynaa mise waan soo gadanaa annaga oo ka duulayno taxliilkana hor yaallo waxaan leenahay shirkaddu waa in ay sii samaysaa inay ayada samayso ayaa u kharash yar inay shirkadda samayso ayada ayaa uga kharash yar in ay supplierka ka soo gadato xataa haddii per unit ahaan ay kala duwan yihiin. Per unit ahaan halka markaan soo gadanay 25 uu ka yahay halka marka kale uu 30 yahay oo bimacna waxay ka dhigan tahay waxaa jiro kharashaad kale oo uu ka qayb qaadanayo waxaa jiro 2 kharash oo kale oo ay ka qayb qaadanayaan in ay cover gareeyaan laano qaybtan depreciation ka haddii hadda aan saari weyno qaybtani samaynta partka qaybta 4A waxay ka dhigantay waxay aadaysaa product kale aadaysaa bimacna kharashaadkii baa kugu badanayo ma aha real inaad wax save garaysay. hagaag idan decisionka marka aad rabto in aad qaadato waxaad samaynaysaa waxaad isbarbar dhigaysaa kharashka aad ku soo gadanayso iyo kharashaadka relevantga ee aad bixinayso marka aad samaynayso. qaybo kamid ah qaybaha internally marka the part internally kharashaadka aad ku bixinaysa ee relevantga ahi. Okay, laakiin waxaad ka saaraysaa excluding sunk cost waa ka saaraysaa waa kharashaad horey loo bixiyay. future-ka waad ka saaraysaa kharashaad aad bixin doonto. Okay, kharashaadka aad bixin doonto waxay ka dhigan tahay will exist whether we will make or buy from outside. yani kharashaadka general factory overhead ko kale ama aan ka soo gadano ama aanan ka soo gadanin waa kharashaad aan bixin doono. waxaa jira wax la dhaho opportunity cost horana waan u soo qaadanay oo ka dhigan faa'iidooyinka ay shirkadda weynayso marka ay go'aan qaadato. tusaale ahaan oo kale waxaan qaadanaynaa annaga samayno capacity-ga meesha ay wax ku samaynayso waxaa laga yaabaa inay u isticmaali kartay meel kale. idan samaynayso waxa weeyaan waxaa laga yaabaa fursad kale in ay khasaarinayso shirkadda. waxaan ku tilmaamnay opportunity cost-iga ma aha wax actual cash wax kharash aad marka bixinaysa ma aha laakiin waa faa'iido dadban oo aad weynayso. yani waxaan go'aansanay inaan samayno Soomaa ka waran meesha aan ku samaynayno haddaan u isticmaali karnay in aan wax kale ku samayno. Okay, marka actual cash ma aha mana aha wax la diiwaan gelinayo. hagaag okay waan dhamaynay qaybtii ugu horeysay oo ahayd ma waxbaan soo gadanaa mise
waxbaan samaynaa. hadda waxaan qaadanaynaa ka waran haddii order ku imaado ka waran. order markuu ku imaanayo waxaa la rabaa in qofba ku imaado wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaad ii samayso intaasoo kun oo yani alaabta aad soo saarayso. tusaale ahaan oo kale waxaad soo saartaa aan ka soo qaadno waxaad tahay shirkad ka ganacsato samayso tusaale ahaan oo kale mithaal aan soo qaadano baabuurtaad ka ganacsataa tusaale ahaan oo kale. okay, hal shirkad ayaa kaa dalbatay ama qof baa ku yimaado markaas intaasoo baabuur ayaan u baahanahay ayuu ku yiri. ama dharka ayaad samaysaa markaas wuxuu ku yiri waxaan kaaga baahanahay 10,000 oo funaanad inaad ii samayso ay ku qoran tahay sheer xirfad. special orderkaasi marka qofka maadaama kimiye badan kaaga baahan yahay muxuu samaynayaa daa'iman wuxuu isku dayayaa in uu ka qiimaha hoos u dhigo. idan qofkaasoo kale sidee baad ula gorgortamaysaa, sidee baad wax ku gorgortankaasoo kale aad u geli kartaa. idan waxaan qaadanaynaa inaan aqbalno orderka specialka iyo inaan diidno. special orderka waa wax mar hal mar ku imaanayo, waa one time order weeye. تمام. and it is not considered part of the company's normal ongoing business. ma aha wax yani mar walba soo la laabanayo oo kamid ah qaybta normal ongoing businesska caadiga ah. waa fursad hal mar albaabka ku soo qarqaraaday. okay, maxaana laga rabaa markan oo kale? waxaa la rabaa inaad indhaha ku taagto, inaad analyze garayso oo adoo fiirinayo waa maxay incremental costiga aan arintani ka dhalanayo iyo maxaan ka faa'iidayaa, yani maxaa relevant ah. still waxaan dabaqaynaa conceptigii aan soo qaadanay ayaan dabaqaynaa. okay, taa maxay ka dhigan tahay marka? fixed costiga, manufacturing fixed costiga in aynan ku saamoobaynin. fixed manufacturing overhead costiga ma ku saamoobayso. yani fixed manufacturing overheadka waxaa weeyaan waa irrelevant way. irrelevant waa cala tuul. they are not relevant. ma aha kuwa ku saamoobayo. bimacnaa waxay ka dhigan tahay waxaad fiirisaa qaybta variable costiga fiiri. variable costiga fiiri. hagaag mithaalan isla qaadan insha allahu tacaala. shirkadani waxay samaysaa tusaale ahaan oo kale producti ayay samaysaa, waxayna ku iibisaa halka producti $20. okay, a foreign distributor qof alaabta ka ganacsado oo ah ajnabi ayaa wuxuu ka dalbaday 3,000 oo unit inaad u samayso. 3,000 oo unit ayaa laga dalbaday inaad u samayso. laakiin muxuu rabaa inuu kaaga iibiyo, inuu faa'iido rabaa. soo waa inuu wuxuu ku leeyahay $10 igu samee. yani half of the price uu ku weydiisanayaa. ma aqbalaya mise waa diide? okay, waan isla arki doonaa. this is a one time order. waa hal mar wax ku imaan doona, wax soo la laabanaya ma aha. aan mana effect garaynayso normal business kaagi, yani wax weyn kuguma soo kordhinayso. bimacnaa waxay ka dhigan tahay awood aad uga shaqaysa ayaad haysaa. capacity-ga awoodda wax soo saaritaanka shirkadda waa 10,000 oo unit ayay sanadkii soo saari kartaa, halka hadda ay ka soo saarto 5,000 kaliya. bimacnaa waxay haysaa awood ay ku soo saari karto 3,000. waa muhiim in aad macallimiinta waxaa weeyaan dadku way gaadaan. waa in aad check garaysaa shirkadda awood ma u leedahay. haddaynan awood u lahayn bimacnaa waxay ka dhigan tahay fixed costiga inay ballaaranayso. bimacnaa waxay ka dhigan tahay arrinta saameyn ayay ku imaanaysaa. waa in aad fiirisaa. okay, hadda shirkadda miyay aqbali offerkan mise way diidi? sifa aan u ogaanay inay aqbalaysay inay diidayso, bal right now aan fiirino qarashaadkeeda, aan daatadii dib ugu laabano. maxaa qaab noocay baan hadda u waxaynaa? bimacnaa waxaan samaynaynaa warbixin khaas ah oo calaaqala leh productigaasi. okay, 5,000 ayaan soo saarnaa hadda, 20,000 baan ku bixinaa, waa 100,000. qarashaadka ku baxo ee variable costigana waa 40,000, halka unit waxaa ku soo hagaagayo $8. okay, qarashaadka fixkana isma bedelayaan baan niri. bimacnaa maxaan inta ka faa'iideynaa? waxaan inta ka faa'iideynaa in kharashaadka in ay yihiin variable-ka $8 inay yihiin. hagaag. okay, maadaama rabto special order-ka mar walbaba incremental-ka fiiri baan niri. okay, revenue-ga maxaa ziyaadayo? revenue-ga
waxaa ziyaadayo 3,000 ayaan waxaan ku iibinaynaa 10 bimacnaa 30,000 ayaa noo ziyaadayso. Okay, waa maxay kharashaadka ziyaadayo qaybta variable-ka kaliya ziyaadayso? idan 3,000 oo lagu dhaftay 8,000 24,000 markaan kala jarno maxaa soo baxayo? in net income-ka uu ziyaadayo 6,000 aad faa'iidayso. in 6,000 aad faa'iidayso. Okay, shirkadda miyay aqbali mise ma aqbalayso? maadaama ay increase grade in maadaama oo ziyaadayso income-kaaga uu ziyaadayo 6,000 shirkaddu waa in ay order-kan oo kale ay ka faa'iidaysataa. albaabkan fursadan albaabka u soo gargaraacday waa inay ka faa'iidaysataa oo ka dhigan yani 10,000 capacity-ga wax soo saaritaanku waa 10,000. waxay horey u soo saari jirtay 5,000 ay horey u soo saari jirtay, waxaana hadda ay order khaasa u imaaday oo 3,000 bimacnaa waxay ka dhigan tahay waxa ay soo saartaa waa 8,000 bimacnaa waxay ka dhigan tahay inay hoos u dhigtay inta capacity-ga aynan soo saarin aynan ka faa'iidaysanin ayay hoos u dhigtay. hagaag chapterkii baa dhammaanayo, bal inaad wax ila fahantay in kalaan isla eegno mithaalkani aan ka wada shaqayno. Okay, shirkadani Northern Optical oo ah shirkad ka ganacsato oo kiyaalaha ayaa waxa ay samaysaa, waxay soo saartaa product lagu magacaabo X-Lens. Okay, X-Lens waxayna ku gataa $50 ayay ku gataa. variable production ka waa meeqa? waa $10. halka fixed production cost uu yahay $18. variable selling price kan uu yahay $1. Okay, customer ayaa u yimid wuxuuna ka dalbaday 10,000 oo unit, 10,000 oo kiyaale ayuu ka dalbaday inay u samayso. laakiin hal shardi buu wataa, wuxuu rabaa in lagu daabaco loogada shirkadooda. Okay, arrintaasi sifo loo daabaco yani looga jawaabo baahidiisa, waxa weeyaan shirkadda waxay u baahan tahay inay soo gadato machine ay ku daabacayso loogadiisa. qaybta selling price-kana ma saamoobi doonto, bimacnaa this special order will not involve any selling cost, oo ka dhigan variable-ka qaybta selling-ka calaaqala ma laha, lianno qofkani adoonan xaysiin samaynin ayuu ku imaaday. Okay, su-aasha waa maxay marka? macluumaadku waan isla fahnay. su-aasha lagaa rabaa waxa weeyaan minimum price aynan shirkadda aynan ka hoos mari karin. waa maxay price-ka ay shirkadda ku gorgortami kartoonan marnaba ka hoos mari karin? lianno markii aad rabto qof inaad la gorgortanto price aad digto waa inaad og tahay meesha aad ka duulayso, waa inaad og tahay. hadda 50 aan ku iibinaa. Okay, meesha minimum-kaaga waa inaad ogaato sifo aad ugu base garayso go'aanka aad qaadanayso. idan minimum price-ka waa maxay? waxaa kaloo lagu leeyahay shirkaddu waxay awoodaa capacity-geeda in ay soo saarto there is ample idle capacity to fulfill the order. yani shirkadda way awoodaa in ay soo saarto dalabkan inay ka jawaabto. Okay, قبل شوي maxaan ku dhahay hadda waxaa idhaahday horta price lagu weydiinaya soo ma? minimum price lagu weydiinaya. minimum price sifaad ugu ogaato marka hore waa inaad ogaataa maxaa aniga kharash iga baxayo. markaad kharashka adiga kaa baxaya aad ogaato, markaasaad kasii gudbi kartaa. idan kharashka ugu hooseeya aad ku dhaqaaqi karto waa in wixii kaa galay aad ka soo ceshataa, lianno haddii aad ka hooseyso wixii adiga kaa galay khasaara taagan tahay. bimacnaa minimum price haddii lagu weydiiyey daa'iman waxaad ka duushaa wixii kharashee adiga kaa baxayo. Okay, taa waan kula fahmay macallin. haye dib aan ugu laabanna macluumaadkeeni. maxaan nidhi incremental kaliya kharashaadka ziyaadada ayaan qaadanaynaa. idan waxaan qaadanaynaa wixii variable kaliyaad qaadanaysaa. fix kuma soo daraysid meesha. fix lianno capacity-ga ma ziyaadayo, the same capacity ayaan ku shaqaynaynaa. idan fixka meeshaan ka bixinay. Okay, variable cost-gana waxaa la yiri shirkadda uma baahno inay xaysiin geyso, ninkan isaga albaabka ugu soo qarqaracay meeshaan ka bixinay. idan variable-ku waa maxay? waa $10. Okay, $10 price-ka ugu hooseeyo $10 miya? maya. aaway mashiintii aan soo gadanay? mashiintani waxaan u soo gadanay kaliya in aan ugu adeegno ninkan odayga ah ee dalabka naga dalbaday. idan mashiinta 50,000 ayaan ku bixinay sifa aan u soo saarno 10,000. halkii meeqa ku soo hagaagayso?
konton kun u qaybi 10 kun $5 ayaa kusoo hagaagayso. waxaa kaloo lagu yiri in mashiintani aynan wax kale loo sii isticmaalaynin. mashiintan waxaa weeyaan ma laha this machine has no further use after this order. ma jirto wax loo sii isticmaalaya mashiintani. waa mashiin salvage noqonayso qashinka lagu darayo marka aan dalabka ninkan ka jawaabno. okay, bimacnaa waxay ka dhigan tahay jawaabteena inay tahay 10 oo variable-kii oo lagu daray 5 in halkii unit aan ku xisaabtano $15 kharashka anaga naga galayo. idan jawaabtu waa maxay? waa $15. qaabkee loo xisaabiyey? qaabka loo xisaabiyaan ku tusayaa. waxaa la soo saaray variable production oo xagee qaabkee laga keenay? yani 10 lagu dhuftay 10 lagu dhuftay 10 kun 10 lagu dhuftay 10 kun 100 kun ku soo baxday. waxaan ku darnay mashiintii total relevant costiga waa maxay? waa 150 u qaybi inta rabnay inaan soo saarno. idan minimum average costiga oo minimum price ka aan ka duulay aniga waa $15. waxaan rajaynayaa inaad casharada ka faa'iideen. Allah idinku anfaco.